السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومالية ملك استوجبتي وإذن سلامه وولاشي المام ماجد أو إذن له قلب وناكسن إن سلام كتب قلت أنتوا فيديو أنتوا سوجارو وحنكو عالصنايع إنا لايك سبسكرايب شير أنت بقيد هذان because أني أو إذنك أم واحد إنكو أهاي ولاشين صوماليات بقى هاي مركز تنا قرب استاجا حق بقى إذنكو لا هاي إن مركان كصوتكنا إن برنامج كيجا أحد سجا يا سلامتا إن هرت waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo umada lagu magacaabo reer Puntland inaan halkan uga mahad celiyo Puntland waxaan leeyahay jir oo joog Puntland waxaan leeyahay sida Soomaalinimada leh heel kale walaal kale garab kale amar walba noo garab istaagsantiin oo kuma santiin leeyahay Puntland waxaan kaloo Puntland leeyahay sida amaanta muujinaysiin kal iyo laab waa sidii hore la idinkaga bartay dad dhiig leh oo Soomaalinimadu ay ayagu aad ugu xoog badan tahay inay tiin horta ana og dad baa hadda markay arkaan laga yaabin isdhahaan gabadhan Puntland u dhalatay aniga Puntland run ahaantii waa u dhashay because dalkayga hooyo walaalahey dhinac garbahaygi waaye laakiin haddana kuma dhalan kamana soo jeedo gobolkaas laakiin waa walaalahey sida aan ay noo jecel yihiin ee sida ay Soomaalida u jecel yihiin oo kale iyo ka daran ayaan u jeclaa waan ku qasbanay inaan jeclaado sababtoo maanta dabkii gurigan ka ololaayay biri gurigaas uu ka ololi karaa marka masti way xanuunka haduu garabkan ka qabto garabkaagan kalena inuu dareemo waa masti because garabkan iyo garabkan isku xidid ay ku shaqeeyaan hal qof inuu wada yaalaan marka Puntland iyo maxaa ku dhahaa iyo xamar markii aad fiirisidna waa labadan garab oo hal qof bini aadan ku yaalo kale halkii Somaliland ee banaysay meeshii ay maxaan ku dhahaa iyadoo ay dhuunti ama halbowlihi qofka asagana ay ahaan lahayd because qofka bini aadanka xibniis waa wada muhiim marka aan saas ku leeyahay bal aniga horta barnaamijkan aad ugu xanuunsaday wallahi beenku mishiga ma la qiyaasi karo dadkeeni hoobiye xabad iyo rasaas ay la daala dhacayeen haddana bal dhibkan kala oo na haysto oo hadda nagu cusub fiiriya ma Sacuudiyana laga tarxiilooyaa mase Masrana laga tarxiilooyaa mase Yemenana laga tarxiilooyaa bal aniga niman yahow dad lama beero mana baxo sidii geedo niman yahow dad lama beero mana baxo sidii geedo moogtihiin barbaarteenu baaqi xaraash maaha walloon beeni soconaynin beelina wax tari mayso xukun baadil lagu raadshay dhibta looga bixi maayo keligay haddaan booyo haddii aan baroor diiqo keligay haddaan booy haddii aan baroor diiqo baaqayay la garan doona waxaan ahay bukaan sooco baaqayay la garan doona waxaan ahay bukaan يعني Soomaaliya marra ka soo tagay laakiin macquul ma tahay inay wadan Soomaaliya wadanka Soomaaliya xaaf gobol kamida inay waxaan ka dhacaan macquul ma tahay maxaasig meeshaas aniga hadda ka horna waan arkay barnaamijkaas mar hore oo sanado ka horna waan arkay waan ogaa haddana waan ogahay mid kale macquul ma tahay in dad Soomaaliyeed aniga ina maantay maxaa ku dhahaa wiil Soomaaliyeed ma hooyo Soomaaliyeed ina ugu mana sheegto ina aniga wadankayga ay joogto oo aan gaar ahaan xamar inta qoorta ku dhigo aan dhaho ka bax suurtagal ma wixii anaga dadkii naga horeeyay iyo madaxdii naga horeysay iyo dad qalashooyinkii naga horeeyay waxay sameeyeen anaga wax shaqo ah ku leenahay ma aha mana aha in ummad hadda jirto oo dhibaatada rabta inay ilowdo in loo ciqaabo darteeda ma aha bal aabahan wuxuu leeyahay laas aano toban roob baan ku dhalay 8 roob gaarigan ay saarantay 25 sanaan joogay 25 sanaan joogay ma awista ishaarkan aan ka wataa awistan ishaarkan aan ka wataa hantideedan halkaan ay jirtaa waxaan ugu samay ilaahay baa rasuulka nu sheegana waxa go'aan ku soo gaaray inaan hantideeda dhacsido ban go'aan ku soo gaaray laakiin maanta marka liiga hor yimaaday oo li soo caawiyay wuxuu leeyahay aniga waxba ma haysto wuxuu leeyahay waan indha la ahay waxaan haay lama arko wixii dukaankayga iyo xoolahayga iyo guriyahayga waan ka soo tagay see ku dhacda marka wax barnaamijka Sacuudiga ka dhici jira oo dadka ani waligay ma tagi laakiin waa maqli jira Sacuudiga madal ka soo tarxiilayo gabadha dahabkeeda koomba ku jira ka soo tagtay oo nin baa ka soo tagay waa maqli jira laakiin bal haddana hooyadan waxay leedahay aydan ila dhageysta bal hooyadan aydan waxay leedahay bal wadankan maxaan ku tilmaami karaa marka aniga salaameyna muusa bixi waxayna u soo sameeyeen aruurteen iyo aabaheen oo 9 jira
anigoo dacsi wadanin qabo wadanin ba gaari naga soo saar aruurta soo kaxaysana markale wax ba idin sheegay muddo bal idin soo qabnaa soo baxo xafiiska imaadan waan keenay muddada soo waxayna dhahay wax dib uma noqonaysan aruurna ma soo kaxaysanaysan alaabtii ma soo qaadanaysan orta gaariyaashan qor aruurtana ku soo tagnay aabeena ku soo tagnay xandadayni hore waan ku soo tagnay kobol la'aan ba ku socona gabsaar la'aan ba ku socona wax adduunyada ku الله واشهد ان محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل والله بالله هذا او حماي wax laga xumaado waay war dhibaatadii 2014 dalka Kenya Soomaalida joogtay loo geystay ee baabuurta lagu gurayay ayaa hadda waxaan dhigi karaa waa macquul because wadan islaameed ay tageen haye ee maxaan ku dhahaa waa dad wadan islaameed maanta laga soo bixinayay adiga iskirid wadankan oo yani adiga laftirkaaga qalbigaaga kuma dhiirin karto ma xataa ma xumaanaysid because wadankayga iga bax waa war caadi oo normal ah wadankayga iga bax dilku normal waay adaa wadan islaameed imaaday adaa maxaa ku dhahaa gurigaaga ka soo tagay waay marka adagoo xoogo yar iska yar qushocsan baad gurigaaga aadaysaa ha ku qanacsana hadaa doonto gurigaaga inay aado because dhibaatada gurigaaga ka jirta laga yaaba laakiin nin bay dhabo laga qabanayo oo asagoo dukaankiisa shaqaynayo ololayo oo hadduu rabo gaari gacan usoo riixay sarrifayo lacag in la soo qabto caruurtina bar dugsiga jiraan ee inta baabuur la saaro la garaaco baabuur la saaro dhaw laga siiyo jilib laga ridayo ama kismaayo laga ridayo laleeyahay ma soo geli kartid xadkan dukaankiina oo furnayo nin horta xanuun waaye aad u xanuun badan tahay maanta hadduu maxaan ku dhahaa uu qof Somaliland dhibaatadaas lagu geysan lahaa koonfurta Soomaaliya ama xataa gobolada Soomaaliya ee kale ee degto aad ugu xumaan lahaa man ogolaadeen hadda xataa ma ogol aniga qof Somaliland ka soo jeeda ama soo gobolka anigu waa wada dhalanayba hadda maanta ma dhihi karo Somaliland qof Somaliland ka sheegaysid waa garabkayga waa basaan hore uga soo hadlay waa xibin jirkayga kamid ah because waa walaalahay dhiigay waaye calanka maryaha la qaadanayna ma aha mid lagu kala duwan yahay maryuhu ma aha inay lagu kala duwan yahay maryuhu ma aha wax oo maxaa ku dhahaa oo dadka jinsiyadiisa bedeli kara maradaan sas loo babinayo ma aha mid oo magac bedelaysa dhiigii ma bedelayso dhaqankii ma bedelayso noloshii ma bedelayso wax ay bedelayso ma jirto kaliya Somaliland calan ay haysataa ayadaa gooni u istaagta calan leenahay bay tiri ma ogi wax dhiigii iyo hilibkii wax bedel midna ma jiraan marka ma waxa dhihi karaa marka hadda Somaliland wadan islaameed ay ahayd oo dadkayga laga soo bixiyay ma dhihi karo horta dawladda Somaliland waxa ka codsanaya oo mar labaad ka codsanaya oo mar saddexaad ka codsanaya ummadisa aan ku xadgudubteen oo dhibaatada loo geystay ee Soomaaliyeed walaalihii dariskii wada ceeshay caruurtii wada ciyaaraysay dugsiyada wada akhrisanaysay inaa horta dhibaatada loo geystay laga raali waa hadii ay macquul tahay oo wali ay Soomaalinimada ay jirto inta ashadu an laa ilaaha illa Allah annaheenu xaq baan isku leenahay kaadana markii laga soo tago ummadda aa barakicinaysa waa walaalihiin dadka idin la dhashay waaye ma dhici kartaa hal mar may jirtaa oo qof Somaliland u dhashay mase Muuse Bixiyo adiga laftirkaaga xataa dhibaato meel ku geysto koonfurta Soomaaliya maxamed Siyaad Barra wax sameeyay mase farmaajo dhib nagu sameeyay anaga wax naga qusay ma laha maxamed Siyaad Barra lama dhaho farmaajana lama dhaho Xasan Sheekhna lama dhaho Shariifna lama dhaho waxna la dhaho ma jiro waxna qusay ma laha anaga ummad Soomaaliyeedana ninkii daneesta ama ninkii oo dhib ku geysta adiga adeeg ku taala mid kale ummadda dhibka loo geysto way dhimata Allah ya raxma way dhinteen ayagana dadkii dhibaato xataa Somaliland kaliya ka hadlaysa xamar intaasoo dhiig daadanaya intaasoo sano يا عرور لقى ما أنت إنه هود لدلي أيود لدلي أبوه لدلي أبوه لنقط لله إنه كلورين إنه يتسمى كجوان صابته واحد لا صعد وآخرنا قفل بسفر بويه أم حبات كل فوس مالا كل ما كل فت كل ما أما إسهن إن كل ما أجل إسكعانية وحواي مهمة وحياتها مهمة ما مغشي يا مهمة وإن لا دي منايو واللوجي إن لا دي منايو مركب محانا قولي مناي 91 محانا يعني 80 something كي قولي مناي aan umad ilaa hadda u ciqaabayna wax suurta galaya ma aha aniga hadda maanta dhibaatadan ay haysaa la cabsoodo alla aamusane aakhira abarkayga maslaxayaan dadku ilaahay subxaanahu amalkayga ma ilaahay loo tagaya wax walba qaldanna waa ina ka hadasho way fiican tahay hadii maanta qof inta loogu tago waxa uu haas barnaamijka Soomaaliland oo lagu dilo xataa ama lagu xataa dhibaato lagu geysto meeshii loo socdo umbu tagaya meel kale ka sareysan tagaya koosas ila tahay marka warkayana badanin dhagahan yani ka xanuujinin ummadda Soomaaliyeed horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibaatada ay ku jirtaan idin ka bixiyo fadhiga istaaga iyo chiefka iyo salaada iyo soonka inkastoo in kugu duceeyo ay ugu waajibi ay tahay sababtoo waxaan wax la dhageysan karaba maaha aniga horta wali waxa maqlaba maaha ani waxaan arki jiray xataa aanoo yar oo yani xoogo aqli la markaas burco iyo barbaro abaara ka dhacay adoo leeyahay oo booyada biyo xamar laga soo waraabinayo la soo qaadayo la daldalayo markaas aadan ugu riyaaq jira waana yaraa inay walaalahayga markaa TV-ga laga soo daayo dadkii ooman abaaraha dadka jiro ilmaha yar oo ku dhacday ee nafaqa darrada wallahi anigu waa yaraa aad u yaraa laakiin maxaan ku dhahaa waan ka damqan jiray aadan u niyada aan ugu on jiray
marka ma hilibkii hadda kala go'ay hilibkii berigii ay ku oon jirnay miyaa kala go'ay muusan kala go'ay ilaa hadda dhibaatadii ma ogolin anagu marka inaadna xanuunjisaan oo maxaa ku dhahaa ummad dhan oo muslimiina aad ku xadgudubtaan waa wax laga fiican yahay ummadda Soomaaliland ee walaalaheena inta nadiifka ee damiir kale ee bini aadamada ku jirto islaamnimada ku jirto way dhageysanaya ee anaga dhibaatadeena ee dhibaatadooda tahay yaa markii dhiigeena xataa la jaro anaga lama dhakhtarku hadii loo geeyo ma kala sooci karaayo sababtoo hal dhiig baan leenahay marka cadawgeena iska badan hadaa Soomaaliinahay dadka dhibaatada la doonay way badan yihiin laakiin anagu dhexdeena inaas dhibaateeyno waa laga fiican yahay marka walaalayaal ummad Soomaaliland waxa ka codsanaya gaar ahaan reer Laascaanood waxaan ka codsanaa reer Laascaanood inay ka soo jawaabaan barnaamijkan si degdeg ah uga soo jawaabaan hadaan hay YouTube-ada Soomaaliyeed ama dadka social media ku xiran ee Soomaaliyeed hadaan hay caruurta ama dhalinyarada ama bulshada Soomaaliyeed aadan uga xunahay fariintaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka rajeynaa inuu cid walba uu gaarsiiyo oo ee laga damqado oo reer Laascaanood iyo Soomaaliland iyo dadkii reer Burco oo hadli jiray oo dhaw maxaa ku dhahaa mar walba ka dhigin jiray dhibaatada walaalahooda Soomaalida inay ka soo hadlaan Muuse Biixina waxa ka codsanaya اعتراف raadinaysa اعترافku wuxuu ku xiran yahay wanaaga iyo soo jiidashada adduunyada aad soo jiidato dawladda halkaas ku taala wanaag baa sismeysay boogay galayaan booga diiwaan ma maqashay galaysaa waxaan diiwaan bay galayaan shala waxaas meesha diiwaan bay galayaan bari waxaas meesha diiwaan bay galayaan marka madaxweyne tahana magaca uu dheer yahay ma fahantay markuu magaca uu dheer yahay waxa fiican inaad taagsato wax yar fiican oo waxaba ku kacayso in badan ka baaran dagtaa fiican hebel hadii xabsiga shan la geey hebel kala soo qalmin la geey hebel ay kala la geey nin hebel la dilay dadka qaar ee qarax Soomaaliya xabar ugu dhamaanayaan qaar ee maxaa ku dhaca goboladan dhexe gaajo ugu dhamaan qaar ee tahriib ku dhamaanayaan wax maanta oo noo soo baxay ma jirto marka Muuse Biixi waxa ku dhihi lahaa sheekadan cunsurinimada ummadda Soomaaliyeed lagu ma yaqaan caana kuma aha dad isjecel oo hadee isdiridaan caawa hataa bir subax dadka meedkooda duugta oo isguursada oo gabdhaha iska doontaanahay marka waan wada dhalanay markeen horabo ul iyo diirkeed baan ahayn marka waxaan ka waantooba arintan mar dambe aysan dib u dhicin ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtiin waxaan ka codsanayaa barnaamijkan ka hadashiin oo ka dhidhisin oo mar walbana maxaan ku dhac dhibaatada walaalihiin lagu hayo ka damqataan si ay u dareemaan in dadku dad leeyihiin si loo dareemo inta barnaamijka mid lamid ah ku kulmaayeen insha Allah taala waxaan ka rajeynayaa Ilaahay idinkiis inaan dib dambe u kulmi doono oon barnaamij kale oo xiiso leh ama muhiim ah tahay inaan ka hadlo aan ka hadli doono Ilaahay idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galab wanaagsan idin leeyahay